40 years from now konton sano maanta lagu joogo haddii ilaahay uu naftan ugu daayo qofka aad iska warhayn doontaan waa qofka asaga ah laakiin saaxiibtinimada way isbedeshaa dabaqada isku bedeshaa noloshaada maalinta meesha ay marayso iyo qofka isku hadafka tiinay mar walba saaxiibtinimadaada ku jirtaa nolosheen horta way ballaaran tahay yani maalinta aad dhalatay ilaa الآن dad badan la soo kulantay dadkaasna waxa kula soo kulantay marxalado kala duwan ama siyaabo kala duwan tusaale kale markaad caruurta tihiin waxa garanaysaa intaad isku diriska tihiin ama aad banooni isla ciyaartaan ama aad isku dhawdihiin ama isku dugsi tihiin sidoo kale markaad iskuulka tagtaan waxa baranaysaa dad ka duwan dadkaasi oo arday isla tihiin halkaasna aad ku saaxiibaysaan ama fasalkaas aad ku saaxiibaysaan sidoo kale marka iskoolka laga soo tago jaamacadda la yimaado ama nolosha caadiga la yimaado dad kala baranaysaa haddana aad ku saaxiibaysaan waxa markaas aad marxaladda marka aad ku sugantiin ama waxa markaas aad wada qabanaysaan shaqooyinka sidoo kale dad waxaa jiro ama shaqooyinka ku imaanaysaan shaqadaas aad ku saaxiibaysaan idan waxaasi oo dhan markii laga soo tago waxa macquul inuu jiro hal shakhsi noloshada saameyn ku yeesho waxa macquul inuu jiro shakhsi markaad wada sheekeysanaysaan aadan hadalka kaaga gaawinin aadan yani wax walba qof u sheegan karto qof aad la qosli karto saaxiibka kugu dhow saaxiibada kugu dhow ya qof xilli walba wici karto qof wax walba weydiisan karto qofkaas marka saaxiib la yiraahdo waxa kale oo dhan waa dad aad asxaab tihiin waad ku soo yani asxaab ku noqoteen marxaladooyinka aad soo wada marteen which means hadaa wadada iska hormaato waa islaamaysaan oo waxa ka wada sheekaysanaysaan kaliya waxay noqonaysaa wixii markaas aad isku barateen ama shaqo haday noqoto ama haday noqoto waxbarasho ama haday noqoto waagi caruurta isla soo korteen tusaale kale adigoo wadada socdo waxa ka hormaado qof aad waa hore isla soo korteen sheekada u hore sheekaysanaysaa waxay tahay waaga hore somaa iskoolka sidoo kale jaamacadda sidoo kale ganacsiga sidoo kale qofku waa qof wax isku barateen aad asxaab tihiin qofna waa qof aad mar walba sheekaysan kartaan mawduuc walba aad ka wada hadli kartaan yani talo walba aad weydiisan kartaan hadalkiina aadan gaagaabin qofkaas saaxiib la yiraahdo marka idan qofkaas nolosha saameyn ku yeelan kara laga yaabaa tulooyinka aad u ku siinaa inay saameyn kugu yeeshaan laga yaabaa qaabka ku dhaqma inay saameyn ku yeeshaan laana baaritaan SMS jaamacadda University of California waxay sheegtay saaxiibada xun inta badan qofka dumar saaxiib xun leeyahay yani qofkaas wuxuu noqonayaa qof cadaadis badan la kulmo mid nafsiyan qofku wuxuu noqonayaa qof walaac iyo depression stress ku furan laana qofku uu saaxiibka leeyahay wuxuu kala kulmayaa hadallo aan wanaagsaneyn wuxuu kala kulmayaa dhaqamo aan wanaagsaneyn wuxuu kala kulmayaa yani ficilo aan wanaagsaneyn laga yaabaa qofkaas in hadhowti waxaasi uu kala kulmayo saameyn ku yeelato noloshiisa isbedel ku ama daroogo hadduu qofku daroogo uu yahay daroogisti daroogadaas uu barto hadduu yahay qof waxbarashada ka tagay ama qof yani nolosha zero level ka taagan at the same time wadun wuxuu istaagaan isku meel idan saaxiibku waa saaxiib noocaas wuxuu xumaani karaa wuuna wanaagsanaan karaa marka ay soo gal marka qof suuq u aan karaa ama qoran kara saaxiib wanaagsan saaxiib xulus isla inta adankaas gaarin ninkan hadal uu dhahaa rabaa inaa hadalka soo saarto waxaa jirto gabar aan intaas kala shaqeyn jirnay oo groupka saaid noogala shaqeyn jirtay ilaahay hadaayo waxaa waaye programkan ka tirsaneed dana shakhsiya ka reebay marka waqti badan waan wareysan jiray aan waxaa dadka su'aalaha badan yani qofkii ila fadhiisto maanta dhan waxaa su'aal ka weydiinaa marka anigoo la sheekaysanaya waxaa ku dhahay qof furfurana tahay saaxiibo yani dadkan badan aad saaxiibo la tahay like how do you say best friend ugu soo saartaa dadkan dhan aad saaxiibo la tahay dadkan friends-ka aad la tahay say saaxiibo ugu soo saartaa hadal igu tiri hadalkaana yani fikradda ama saaxiibtinimada waxa ka aaminsanaa wax badan iga bedeshay waxay tiri saaxiib aniga hadda leeyahay 2 iyo 3 qof oo aan saaxiibo la ahay jiro laakiin dadkan kale waxa uu aqaan wax acquaintance la yiraahdo yani qof aan isla kulanay oo nolosha wax iskala qaybsanay oo aan isgaranayno intaas hayna igu agta saaxiibtinimada laakiin aniga waxa qofka aan saaxiibka u aqaano waa you know it's different so aniga waxa isdhiilaha dabcan nolosha dadka badan aad kala kulmayso waa dad aad isgaranaysaan qofku dhaay 100 saaxiib baa leeyahay ama 200 qof saaxiibtinimo ma ahas isgarasho waaye soo ma fahmin marka saaxiibtinimadu waxay noqon kartaa 5 qof 10 qof haddii aad nolol badan soo martay ama marxalad kala duwan oo nolosha aad soo martay waxa laga yaabaa inay ku kala badnaadaan maadaama meel walba aad joogto ama noloshaada meel walba oo waqti walba oo noloshaada aad qaadatay inaad qof ama 2 ama 3 qof wanaagsan aad kala soo baxdo marxalad kale markaad aado marka waxa laga yaabaa 5 6 marxalad kala duwan markaad aado in aad min 4 qof oo saaxiibo wanaagsan aad kala soo baxdo oo marka ay ku balaaranayso dadka aad saaxiibaha isku dhowtiin laakiin aysan noqonin in aan nolol maalmeedkaada ay kugu la jiraan oo aad isku dhowdihiin oo laakiin aadan isla xiriirin marka aad kala maqantii laakiin marka aad isla joogtaan aad talada isla wadaagi kartaan noloshiina aad ka sheekaysan kartaan waxyaalihii kugu soo dhacay waxyaalaha kusoo maray iyo wixii talo kula ah iyo
marka wixii farxad ay wixii muruga ahaad isla qaybsan kartaan صح إذن صح ما قدر سنة okay su-aasha ay weydiisay qofka saaxiibka wanaagsan muxuu ku dooran karaa هذه أنا اوكي laba wax aan isdhihi karaa aniga oo qaacido ma aha laakiin qofka garaadkiisa in noloshiisa marka qofka uu qiimeynayo uu qiimeyn karo asaga wuxuu nolosha uga baahan yahay inuu qofkan uu buuxin karo ama uu kaafin karo ama ay cashiro ay ku noqdaan qofka adiga aad u moodaysa inuu saaxiib wanaagsan ku yahay uu beri ka maalin markuu ku xumeeyo aad ogaatid qofka saaxiibka xun wuxuu noqon karaa ama okay saaxiibka wanaagsan waxaa ku ogaan kartaa inuu yahay qof mar walba Allah subhanahu wa ta'ala ku dhaweynayo oo dhanka Allah maxayday kuula tacaalayo oo ku dhahayo in hadaa wax ka qaldeen qaladkan iska ilaali saaxiibka u wanaagsan horta midaas aan dhihi karaa sababtoo adduunkan waa waqti yar waa laga wada tagayaa qofka saaxiibka oo saxda ah wuxuu mar walba ku baraarujinayaa wanaaga xumaantan inuu ka ilaaliyo isku dayay hadaa labadaba ma wanaagsanaanayaan ilaa hal qof aa wanaagsanaanay hal saaxiibkaasna qofkan soo u wado qofkan uu raacayaa saaxiibka xunna sidoo kale waa opposite uu ka soo horjeesanayo qofkan soo caadiyo qofkan kala wadada xun tusaya soo marba wax xun u tusayo oo qofkan u raacayo labadan qof way isla xumaanayaan waxaa la dhahay qofka hadaa rabtid inaa ogaatid dabeecadiisa waa inaa fiirisid saaxiibkiisa ama gabadha saaxiibteeda labadaas saas waaye oo way hagayaan qofkan hadduu wanaagsan qofkan wanaag u horseedaya marka qofka saaxiib wanaagsan inaa haysid saas ku ogaanaysaa hadduu xun yahay adina xumaanta ay ku sii macaanaato ay kula tagaysaa marka ani midaas aan dhihi lahaa waxa la aniga mid aan qabo horta qofka inta uusan gaarin qofkan xolo ama sifo wanaagsan ku xolo ama saaxiib wanaagsan ka dhigo sideedaba wanaag iyo xumaanta marka hal meel wada imaadaan inta badan wanaaga baaboo laana inta badan saaxiibka xun wuxuu sameeyaa qofkii wanaagsanaa idan sideedaba noloshani xumaan iyo wanaaga dameel wada imaadaan hadda casrigan la joogo inta badan xumaanta xoog badan which means adiga hadda xun tahay aad wilbana xumaantaasna aadan ka soo tagin ama dhaqankaas aadan iska bedelin haddii aad tiraahdo qof wanaagsan la saaxiibaya qofkaas sameynaysa ugu dambeyntii bil xaqiiq idan maxaa lagu saaxiibaa marka hore ka horeysa intaad qofkani aadan maxaa ku xulashaa maxaa ku xushaa iyo sifado ku doortaa intii la gaarinba maxaa lagu saaxiibaa horta waxa lagu saaxiibaa waxay tahay wax isdhaafsi inaad wax laga faa'iido laana qofka bini'aadamka sidiisaba waa in wax faa'iida adigna wax laga faa'iido laana haddii aad qofkan mar walba wax ka faa'iido saaxiib ma tihiin laana adiga kaliya marka booska saaxiibtinimada taagan qofkana booska macallimuu taagaya marka macallin iyo waxaad tihiin arday marka saaxiib ma tihiin it means adiga waxaa laga faa'iido qofkan kaleetana sidoo kale waxaa kaa faa'iido marka waa wax isdhaafsi haddaan si kale u dhigo yani qof aad isla koraysaan waay which means waa qof aad yani isdhiirigelinaysaan iswacyi gelinaysaan tusaale isku noqonaysaan sidoo kaleetana aad isla koraysaan yani marxalad ahaan iyo sidoo kaleetana sifo ahaanba taas baa ka horeysaa intii la gaarinba qofku maxaa lagu xushaa cali bin abi daalib wuxuu yidhi saaxiibka wanaagsan waa kan garab ku siiyo markaad u baahan tahay sidoo kaleetana ku ammaano markaad maqan tahay oona ku ceyin sidoo kaleetana marka aad dhimatana kuu duceeyo qofkaas saaxiib la yirahdaa marka qofka hadduu mar u yahay qof marka aad maqan tahay ku caayo ama ku dulmiyo qofkaas saaxiib ma ahan sidoo kaleetana hadduu yahay qofku qof aan mataqaantaa dee aan garab ku siinayn hadduu garabkaas uu awoodo laana garabka sidiisaba dhaqaalo oo keliya ma noqon karo wuxuu noqon karaa hadal wanaagsan wuxuu noqon karaa talo wanaagsan wuxuu noqon karaa wacyi wuxuu noqon karaa qofku aad ilaahay u dhaweyso ilaahay soo xasuusiso xilliyada qaar intaas qofka haddii marba aadan ka helayn saaxiib ma aha kaa waxa waaye waddo xun buu ka horseedaya okay haddii appointkaas ka hadlo dabcan ma isdhihi kartaa qasab maaha mar walba qofka saaxiibka ah in laba qof wax kala faa'iida ay noqdaan for example hadda annaga markaa dhalinyarada yar ahayn hadda xataa dhalinyaraan nahay laakiin 5 sano 7 sano 8 sano ka hor markaan dabcan high school ka soo dhameynaynay oo fircooneen talada naga wareersaneed ama markaa bulsho waxa lagu dhex jiray oo very hyper ah bunuuni maanta dheelay bunuuni waxa dadka dhalinyarada isdhex ordayso soo maaha laakiin waxaa laga yaabaa in qof ka weyn adii 3 sano 4 sano ka horeeyo ama 2 sano ka horeeyo oo jaamacadda markaa kaa fasal horeeyo in aad mar walba la fadhiisatid maadaama aad adiga jeclaysatay habnololeedkiisa ama aad ka dhex aragtay mustaqbalka sidaad jeclaan lahayd